I'm John Tory, and as Mayor of Toronto, I'd like to welcome you to our city for the Somali Week Soccer Tournament. 10,000 people, imagine that, 10,000 people attending the event from Europe, Australia, the United States, and of course, across Canada. Somali Week remains the largest gathering of Somalis in Canada, and I value the ultimate goal of the tournament, which is to promote a spirit of cooperation and to preserve the richness and beauty of the Somali culture and heritage within our great city. I also want to take this opportunity to congratulate the Toronto Development Association of Youth on their 25th anniversary of this tournament. Toronto is indeed one of the world's most diverse cities, and events like these provide an opportunity not only to celebrate the cultural traditions of our diverse communities, but also to appreciate the achievements of Torontonians themselves. Once again, welcome to Toronto. I hope you enjoy your stay in our great city. Somali Week halkan lagu qaban jiray oo dad badan oo maaragtay igu horeeyay aniga ay soo wada qabteen oo magacyadu halkan ku soo koobi karin waxaan jecelnahay in sanadkan wax qurxoon oo dadka Soomaalida ah ay wada arkaan in Somali Week hore laga dhigi jiray early 90s inaan soo celino in ummad fara badan aan ku casuumay sanadkan inay halkan yimaadaan annagoo ah magaalada Canada gaar ahaan Toronto dadka dhan ay hal meel wada joogaan oo isku wada duuban yihiin oo uusan midna ka maqnayn sanadkan ayaan ii sheegaynaa ilaa labadii sano ugu dambeysay inaan isku wada duubno oo wax dhibaato ah iyo problema aysan ka jirin dad fara badan aan casuumay oo Maxamed Ismaaciil ka mid yahay ciyaartoydii favorite-ka ii ahaa ama aan aad ugu jeclaa waagii aan ninka dhalinyarada ahaa ciyaari jireen ciyaartoydii aan ugu jeclaa ka mid ahaa imaado rag fara badan ay imaado Minnesota macalinka weyn oo Seed taqaaniin qarindi oo ahaa macalinka Kismaayo magaratay rag fara badan ay imaado ciyaartoydii fara badan Virginia deganada mahallara deganada imaado waxaan kaloo jeclahay macallin Cali Ismaan oo ahaa macalimiintii ugu horeysay basketballka ciyaartoyna ahaa asagana aan jeclahay inuu sanadkan halkan soo galo kubadda cagta iyo basketball sanadkan looma kala harin Toronto ayay maaragtay isugu imaan doonaan insha Allah 2015ka July ilaa August waxaan jeclahay inay si wanaagsan oo fiican Welcome to Toronto Somali Week 2015 meel kasta aad joogtid Soomaaliya maanta waxaan u dabaaldegaynaa 25 guuraagii ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliyeed Somali Week oo meel kasta oo laga ciyaaro nin kasta Soomaaliyeed oo ku faraxsan yahay hooyo kasta marka waxaan leenahay 25 ka bilaabeyna ilaa labada bilood ku dhameeyna waxaan rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed aan ka rabnaa inay midowdo ay mid noqoto sida calankaas kor ugu istaagay 25 sano calankaas koran u hayay marka maanta haddii calankeena la suro adduunkoodana laga intiraafay maanta waxay noo tahay farxad gooniya waxaan leenahay dowladdeena shacbigeena ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan welcome to Toronto aan leenahay ku soo dhawaada Toronto oo wax fiican aad iyo aad u sarreyso isu dhawaashaha isgalka Soomaali badan oo soo qoonaa isbaratay marka inaan meeshaas waxaan rabnaa jiilka naga dambeeyay inay sii wadaan waa ku faraxsanahay welcome to Toronto aan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عمر معلم وهذه أنا أقوم علمي برنامج كان مانت جالس كأسيسي وبيش كحرنمو عبد الكريم هذا كأقول مرسلت كان عيارها وحواي وإن شاء الله تعالى وسنة جوري لعشرات الصومال ويك مجال تورونتو أولي سبورت الصوماليات وحان جعلنا هنا بدك مد الصوماليات مقصود من المجال ما أعرف عيارها سنة جوري إن شاء الله تعالى تضرب بدن مد معها إن ماشي عيار روقتك مدة قوة محاولات كثيرة كمان شكاستان مدحضلان ودنكي وتنمدي وقتي سوق هذا إن كود هذا الشكاست مليكاس عيار في حساس كعروت كل مكان
marka insha Allah tacaala waxaan u rajeynayaa ururka Tulay sanad guurad wacan inay sameeyaan insha Allah tacaala anigana wixii awoodeeda iyo mataqaana aqoonteeda inaan ku biiriyo ayaan jeclahay aad iyo aad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dikrin aad iyo aad u mahadsan tahay fursadan qaaliga oo aad siisay dadka ugu soo bandhigo Somali Week sideeda wuxuu ka bilowday magaalada Toronto faras magaalaha ayuu ka bilowday magaalada madaxda Ontario ilaahay mahadiisna ma aragtay waxa ka soo wareegtay 25 sano marka waxaan rabnaa 25 kaas sano in aan tusno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadka North America Europe Australia ilaa Africa iyo meel kasta in aan tusno ma aragtay meerihii ka dhashay Somali Week aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ma aragtay in aan ku soo dhaweyno magaalada Toronto ha ahaadaan dadkii ciyaartooyda legendka ahaa dadkii odayaashii tifoosiyaashii hooyooyinkii waxaana aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ma aragtay sanadkan in uu noqdo ma aragtay sanad wanaagsan wax badan ay isbedeli doonaan insha Allah adna arki doontaan welcome ayaan leenahay Toronto ururka Today insha Allah sanad guuridii 25aad waxaana arki doontaan maray ka yimid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Arrimaha hadda aan ka hadlayo waxaa waaye Somali Week. Somali Week anigu waxaa igu horreysay 95kii markaa ina Toronto markaasita ayaa kooxihii Somali Week aan shirar u qabanay marka hawaa kooxaha oo asdiidiraayeen marka waxaan ku talagalnay si aan isugu yimaado inaan bal shir inaan qabanno shirkii ka bacdana sidii loo bilaabi lahaa tii waa ku guulaysanay waxaa laga qabtay cayaar xaafadaha qabanay oo xamar xaafad walba nin walbaba inuu u cayaaro xaafadu deganaan jiray tii waxay keentay cayaartooyda in isku dhafaan markay dhamaatana waxaan bilaabnay cayaarihii liiga ahaa oo Somali Week ahaa marka adigu Soomaalidu waa iska dhibadneed Soomaalida markaas waqtiga cariiri bay ahayd mar walba waxaa dhici jirtay markii cayaar inuu khilaaf yimaado haddana dib u heshiisiin la aado adigu muddo badan waxay socotaba ala kulli xaal cayaarihii mar walba waxaa dhacaysa in cayaaro la qabto markii dhamaadana wixii isqalaafa la xalliyo haddana dib loo bilaabo marka adigu ilaa mudday socotay arrimahaas ayaan hadda aad iyo aad ayaan u mahadsan tahay horta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xornimo.com oo aad iyo aad qayb weyn uga qaadanayso barnaamijyadan aan wadno oo adduunyada iyo dacwada adduunyada iyo meel walba laga imaan doono lagana daawan doono aad iyo aad ayaan ugu mahadsanahay inaan fursad u helo caawa inaan ka baahiyo barnaamijka aan qaban doono sanadkan haddii ilaahay yiraahdo haddii aan nahay Toronto Development Association of Youth oo markii lasoo gaabiyey loo yaqaano Today waxaan qaban doonaa haddii ilaahay yiraahdo barnaamij aad iyo aad qiimo iyo qaayo u leh oo hooyan u ah magaalada Toronto barnaamijkaas oo la yiraahdo Somali Week isagoo jirsaday 25 guuradiisii ayaan u dabaaldegaynaa sanadkan waxaan filaynaa inay kooxo Europe iyo North America iyo Toronto ay ka soo wada qayb galaan cayaarahaasna waxay noo bilaaban doonaan haddii ilaahay yiraahdo bacda Ramadaan 25 of July ilaa 2nd August ay noo maaragtay dhamaan doonaan bisha 30keeda July haddii ilaahayna gaarsiiyo 2015 waxaan qaban doonaa xafladii aan ugu talagalnay in aan ku maamuuso 25kii guuraagii ah waxaana aad iyo aad u filaynaa oo guest speaker noqon doono haddii ilaahay yiraahdo oo aan filaynaa confirmationkiisa inaan helno oo weli laakiin aanan helin ex prime minister farmaajo aan casuumi doonaa haddii ilaahay yiraahdo inuu naga ogolaado weli wadaxdana ayaa noo socdo bal confirmation ka helno mar labaad waxaan kusoo noqon doonaa midnimo.com ayaan dadka ugu sheegi doonaa inuu maaragtay automatically guest speaker uu nooga noqon doono barnaamijkaas marka waxaan u sheegayaa oo aan farayaa dadweynaha magaalada Toronto ku nool iyo Europe iyo adduunweynaha iyo Soomaaliya in aan barnaamijkaas ka dhici doono magaalada Toronto dalka Canada waxaan ka codsanaynaa each and everyone oo awood u leh inuu imaan karo ka soo qayb gali doono inuu naga soo qayb galaan waxaan kusoo dhaweyn doonaa gacan furan mar labaad aan ku celiyay 25 July 2015 after Ramadan haddii ilaahay yiraahdo ilaa 2nd August ayuu noo socon doonaa barnaamijkaas aan sanadkan ugu talagalnay in aan muujino waxyaabihii ugu horreeyay adduunweynaha ka dhaca oo Somali Week ah oo laga bilaabay magaalada Toronto aad iyo aad ayaan u mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحسنت عبد الكريم يو ميني حرنمو هل كان وحان نقولكم هدرا جرينا يا
ururka today oo qabanayo Somali Week 25 sano kadib ururkan uu soo maray marxalado kala duwan laakiin ciyaaraha Somali Week waxaa la aasaasay 25 sano ka hor iyadoo ururo badan kala duwan soo qabteen laakiin maanta 6 sano u dambeysay waxaa ciyaaraha Somali Week gacanta ku haya ururka today sanadkan waa 25 sano Toronto aad baa loogu dabaaldegayaa waqtigaas oo ku aadan waqtigii long weekendiga Kaabana dadweynaha dibadda markasta joogaan waxaa leeyahay usoo dhamaashatay Toronto oo ciyaaro ka dhacaya xaflado badan ka jiraan waxyaalo badan ka jiraan marka arag wacan Toronto welcome to Toronto sanadguurida 25aad ee Somali Week oo ururka today la hayo welcome good night السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كفرحسنا هي معاوينا كسوق قالي ويب سايت كحرنيمو ومركز توسو تاجن إن لانيرتا أو مقالة تورنتو أي واحد قبته مركز توسو ديارسين إن أي سوق بعيان عيارها أو سنة كستالا ديجو مقالة تورنتو سنة كان يسوي إيمان دونو يهدو على دوري لوي تيم أو كندا يدبدي لو إيمان دونو waxaan ku faraxsanahay in aan diyaar u wadanahay caruurteena ee magaaladan ku dhashay ama ku soo koray in aan ka badbaadino problemka ka haysta wadankan in loo diyaariyo after school programs ay dadkii ay soo dhawaanayaan ku soo wada midoobayaan waxaan ku tala jiraa mar kastaba in aan mideyno kooxaha iyo dadka ku mashquulsan in ay u diyaariyaan sanad kastaba ciyaaro ay ku tartamaan dhalinteena meel kasta ay joogaan marka diyaarna waxaan u ahay mar kastaba intaan awoodo inaan qayb ka geysto qof sportive ma ihi laakiin waxaan diyaar u ahay in aan wada mideeyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta jooga yaryarkooda sidoo kale si ay mustaqbal fiican ugu lahaadaan wadankan ay magacooda iyo Soomaalinimadooda iyo diintooda ay ku ilaashadaan marka waa arrin aad u wanaagsan waxaad website-ka xornimo oo samaynayo insha Allah inaad gacan ka geysataan dhalinyartan ay loo wada safan yahay maanta inay meel ka soo wada jeestaan ay wada tartamaan ruux riyaadiye ay la yimaadaan discipline ay la yimaadaan si looga badbaadiyo dhibaatooyinka yaryarka ku haysta wadankan Canada iyo meel kasta ay joogaan marka khayr aan idin rajaynayaa welcome aan idin leenahay inaad arrintaan oo kale aad gacan naga siisaan haddaad tihiin miidiyada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو ورا وحن عادي أبو مهرنا قيا channels كن أو سي ويب سايت كحرنمو عبد الكريم آد أو ما تنتهي channels كات سيسي. مركو حقيقة وحن رواينا عن بيانيو أو عن بافيو أبي لا هذا أنا بقول كم ده أورك today. أورك today وأورك كردستان مقالة تورنتو كندا. أورن open away قف بول أو سوماليا حلبا كسارن. marka waxaan doonayaa inaan dadka u sheego sanadkan in la qaban doono hadii Ilaahay yiraahdo sanad guuradii 25aad ciyaaraha Somali Week oo ay qaban doonaan ururka today oo ka duwan sanadadii hore oo dhan Soomaali oo dhan way isku timid dad badan oo la janaaba dibadaha ka wada imaanaya waxaan doonayaa martida imaanaysa hadii Ilaahay yiraahdo in qof wal oo Toronto degan uu xilka saaray oo anaga kaliya oo ururka today ah aanu xilna ka saarnay qof walba waxaan doonayaa inuu gacmo furan ku soo dhaweeyo dadka martida hadhow markaynu u tagnana sida nuugu lisna inoogu hambeeyaan aad baan ugu mahadnaqayaa insha Allah maaragtay dadka Soomaalida ay maaragtay imaanaya waxaan leeyahay Ilaahay idin fududeeyo si wanaagsan waxaan Ilaahay ka baryayaa in Ilaahay noogu dhameeyo si khayr qabta Ilaahay noogu dhameeyo waxaan leeyahay soo dhawaada website-ka xornimona waxaan doonayaa insha Allah inaan u mahadnaqo aad iyo aad baa idin mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana mahadsan tahay waxaan caawalkan u joognaa barnaamijkeeni aan isku diyaarinayna ciyaarihii Somali Week sanadkan samarka oo u dabaaldegan 25 guuradii ciyaarihii Somali Week oo magaaladan Toronto oo ahayd hooyadii sportiga Somali Week sanadkan 25 guuradii ay u diyaar garoobayso waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto aan u sheegaynaa inay kasoo qayb galaan ciyaarahaas oo ka duwan yihiin ciyaarihii hore sanadkan maadaama dad badan oo ay imaanayaan waxaan leenahay welcome to Toronto waa magaaladii hooyadii sportiga Soomaaliya laga bilaabay maantana waxaan u dabaaldegaynaa 25 guuradii barnaamijka waxaan leenahay iyadoo maasada Cabdikariim everybody oo Soomaali imaanayo magaaladu waa welcome tiimam kulli ilaa 12 tiim dhalinyaro 4 tiim oo youth ama 16 ilaa 6 tiim oo odayaal ka imaanaya North America Europe intaba waa ciyaarayaan waa 22 tiim باوت سبورتنج بلد جوتو دياشو
hebel hebel ku dhihi karin magac mal waa inta ummad magac leh waad soo wada gelaysaa sanadkan waa huge daafin waa karabaanihi waa Soomaali Week ummadda Toronana marti loo yahay dhawaato ummadda si magaalada war weey yaqaan soo dhaweynta inshaalla abdigii aad waa maasan tahay barnaamijku xirmo waa aad la xukuumad elina wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh aniga waa Cabdi Ali Jibril ahna ciyaartooydii barashamaadkii oo u ciyaari jiray kooxdii wuxuu taas waa intaas introduce-kayga haddii kala u soo laabto anigoo ka mid ah ururka Today ahna dadkii aasaasay 15 sano ka hor sanadkaana waxaan qabnaa sanad guuradii 25 hadduu ilaahay yiraahdo walkaana waxaa ciyaaro ku qaban doonaa hadduu ilaahay yiraahdo ciyaaro dhalinyaro kuwa yaryar iyo kuwa cuslaaday oo aniga ka mid ahay hadduu ilaahay yiraahdo in sanadkan halkaan ku qaban doono maadaama ay tahay sanad guuradii 25 dad badan oo dibadda ka imaanaya ay jiraan hadduu ilaahay yiraahdo Mareykan iyo Yurub Toronto nawaaxigeeda oo dhan marka sanadkan waxaan rajeynaynaa inay noqoto mid insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo laga sheekeeyo marka intaas aan rabay inaan dadkii ummadda Soomaaliyeed u sheego qof walbana hadduu ilaahay yiraahdo waxaan leenahay welcome sanadkan halkaana waxaan rabaa markii inaan uga mahadceliyo Cabdikariim iyo webpage-kiisa xornimo.com والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cabdikariim waa salaamantahay adigii waxaan u mahadcelinayaa website-ka xornimo waa website oo mar walba ummadda u shaqeysa sportiska sanadkan waxaan qabanaynaa sanad guuradii 25 waxaan iskaga imaanay Europe iyo Australia iyo Toronto odayaalna waa jiraan dhalinyarada waa jiraan caruurtina waa jiraan waxaa kaloo sii dheer sanadkan lagu darmeynaa orodada buutinta lagu sii daray marka dadweynaha waxaan leeyahay kusoo dhawaada 25 sanad guuradii 25 wuxuu bilaabana July 25 ilaa 2 August hadduu yaraa waa maadsantahay warahmatullahi wabarakatuh Cabdikariim aad iyo aad u maadsantahay caawa inuu meesha aad ugu soo dhaweysido ka hadlo waxaa sharaf weyn waxaan horta salaamayaa ciyaartooydii qaranka ee kubadda miiska meel kasta joogaan taada labaad ciyaartan oo Somali Week waxaan bilaabnay 1992 ilaa hadda ku dhex jirnaa guulna waa ka gaarnay haddana guul tii ugu weynaan ka gaaro hayna maxaa jiro adduun weynaha dhan laga imaana ciyaartooydii qaranka Soomaaliyeed oo ah Cafiifi iyo Maxamed Ismaaciil iyo Bashiir Jayni iyo iyagan masaladkan naga soo qayb galayaan America waxaa ka imaanaya Cabbaas Saada Soomaaliyo Caraale iyo dadkii horey u asaasay ciyaarahan oo la qabanayo Somali Week dadkii ugu horreeyay asaasay ahaayeen iyagana waxaa leedahay sharaf aad mudantihiin ee lagu soo dhawaado sanadkan ciyaaraha inta lagu qabanayo 2015 waxaana soo qabanqaabiyeen dhalinyarta cuslaatay oo guddoomiye ah Faaraxoodi naadiga magaciisa Today waxaa guddoomiye ka Cadar magaciisa Cantar waxaa joogaan Cabdirasaaq Cadar Cali Mudee Cadde oo maamulka si fiican u wado isagana waxaa leenahay qeyr Allah siiyo waa jecelnahay inaan Soomaali hal far aan isku duubno hal meel aan kasoo wada jeesano laakiin ku jirto إن شاء الله لكن بحنا لكن كسرنا يسرد مبا أكون ذلنا سهل بلنا وصول جسنا. وما سنتهي أو باري وحنا أوصرنا إن حلقة كسرنتي أقيادة مقالة تورنتو كلي لمان وحنا في لا إن يأدي كوجي عليهن قفك على قفك أتكجي عشاء مقالة وأتكسلامي كرتا حرنم. والله Soomaalidu waa jeclahay maxamed wali من عالنا وانا هاي انت سنة سبورت كل حجري هاي وحاجة يعني توبر قرن أكبر دميسك سوكر واسوع يعني كون معلمكم كابتن كو هاجر سي عنتري يوسف شقاقي كاين واجوغان ما عليك كاين واحد هاجر مع الدكة من سجن معلم آد وفي عموه سيروا علينا عفمات يعني لنا خير الله قصير سمعنا ليش هذا الدكتور كل جن على هذه كان رجال عفمات يعني رجال
hal far hal Soomaali waxaan wanaagsan daawadayaasha qiimiga iyo qadarinta mudana oo idinlahaantiima meel kasoo joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeed uga barateen inuu idinka soo baaho bartamaha magaalada Toronto. magacaygu waa maxamed daahir xasan. daawadayaal waad ku mahadsantihiin daawashada aad had jeer barnaamijka nala qaybsataan fikradihiina iyo ka qayb qaadashada aad baad ugu mahadsantihiin. toddobaadkan waxaan idin haynaa barnaamij lamida kuwii hore oo ku saabsan qurbo joogta iyo guud ahaan ummadda Soomaalida ee iyadu 25 sano iyo 22 sano ka hor waddankeeni ka soo qaxday waxyaabihii ay kala kulmeen iyo waxay ku soo kordhiyeen barnaamij ku saabsan. sanadkan magaalada Toronto waxaa ka dhici doona barnaamij aad u ballaaran. toddobaadka Soomaalida ee loo yaqaan Somali Week ayaa sanad walba lagu qabtaa 25 sano inaga tagtayna barnaamijkaasi wuu soo socday. haddaba 25 guuradii ayaa dhici doonta 25 bisha July iyo August labadeeda inta u dhaxaysa.